ka waran haddii 44 sano oo noloshaada ka mid ah aad ku qaadatid xabsiga weliba adigoo aanan lahayn wax dembiya. Ninkan lagu magacaabo Vicente Simons ayaa sanadii 1977 lagu soo eedeeyay inuu kufsi u geystay laba gabdhood oo Montana. Xilligaasi labada gabdhood Montana da'doodu waxay ahayd 14 sano halka Vicente da'diisu ay ahayd 25 sano. Labada gabdhood ayaa booliisku u sheegay in Vicente ay kula kulmeen meel gas station ah uuna ka dalbaday lifti ama inay hor u dhaweeyaan. Markuu gaariga cabaar socday kadibna uu ku qasbay inay gaariga ku leexiyaan meel mugdi ah sidaasina uu kufsi ugu geystay. Intaasi kadib Vicente waxaa la soo taagay maxkamadda waxaana lagu xukumay 100 sano oo xabsi ah. Xilligaasi Vicente waxa uu ku dooday inuusan lahayn wax dembi ah laguna been abuurtay xitaa uusan aqoonin labadan gabdhood ee Montana ah markiisii ugu horreeyay uu arkan oo ku dhex arkay kaliya maxkamadda gudaheeda. Laakiin maxkamadda ma aysan dhageysanin dooda Vicente waxaana loo taxaabay xabsiga. Intii uu xabsiga ku jiray dhowr sano isdaba joog ah ayuu dalbaday trial ama rafcaan